Asaabu muddo dheer qaatay kadib waxay ku guuleysteen inay yagleelaan oo caalamka ku soo kordhiyaan qoys cusub oo muslima. Wiilku wuxuu ka shaqeeyaa mid ka mid ah shirkadaha ganacsi ee magaalada Hargeysa, halka inantuna ka mid tahay bahda caafimaadka ee cisbitaalada waaweyn. Waa lamaane jacayl isku guursaday oo aan dhaqaale isku keenin ama dana kaleba, sidaa awgeed waxay galeen nolol macaan oo nuur calaa nuur ah. Sanad kadib guurkoodii waxa uu dhashay wiil, kaasoo ay ugu magac dareen wiilka aabihii sida hadda loo badan yahay. Jaamac Yare ayaa loogu wanqalay maadaama aanay hooyadan cusub waqti badan haynin isla markaana guriga joogin oo ay inta badan goobta shaqada ku sugan tahay. Waxay ku tashadeen inay qabsadaan gabadh shaqaale ah oo guriga iyo Jaamac Yareba lagu aamino. Jaamac Yare hadda wuxuu jiraa sanad iyo dhowr bilood. Waa wiil yar oo ka dhashay qoys ladane, si fiican ayuu u hana qaaday oo korriin fiican buu helay oo waxaad moodaa inuu ka weyn yahay inta uu jiro. Maalmo kadib waxaa la soo helay inan shaqaale ah oo daryeesha qoyska inta lamaanuhu shaqada ku maqan yihiin. Qofka soo helay inanta ee shaqada ugu yeedhay ayaa si xad dhaaf ah ugu ammaanay, waxaanu sheegay inay firfircoonida ku darsatay howlkarnimo iyo weliba aaminaad saa'id ah. Lamaanu waxa ay shaqada tagaan abbaare 6 subaxnimo, isla markaana waxay soo noqdaan xilliga qadada. Haddana waxay noqdaan salaada casar, waxaanay soo guriyo noqdaan 8 habeenimo. Wax dhaliila oo laga helay ma jirto markay dhowr cisho joogtay oo si wacan bay shaqadeeda uga soo dhalaashay, waxaana si rasmi ah loogu aaminay daryeelka Jaamac Yare iyo gurigaba. dhowr bilood kadib kii yara ayaa muuqaalkiisii xumaaday. Uu sii socdaa lisan iyo rifan baa ku dhacay. Waxaad moodaa ilmo yaroo jadeeciyo qaax isugu tageen oo laba tumateeyaan. maadaama hooyadii marka horeba ka mid ahayd bahda caafimaadka, waxay durba ula carartay xagga iyo dhakhtarka, weliba kuwa ugu tayada fiican, balse waxaa loo sheegay in ilmaha wax cudur oo haya aanu jirin, nafaqa darro mooyaane baaritaankii kadib. Waa yaab, ilmaha caanaha dhinac walba laga dhigay ee daasada waa saleele karaatoonta loo tuulay ee cunto nooc walba oo carruurta da'diisa ay u baahato loo dhigay oo haddana nafaqa darro lagu sheegay. Markii dhowr dhakhtar oo kale la geeyey ee ay isla afkii kii hore uun ku hadleen ayaa la fajacay. Hooyadii oo weli ama kaagsani maalin dukaan horteeda ah goor duhur xafaayad ha u doonato. Cismaan oo dukaanka haya ayay sheekadina dhex martay kadib markii ay ka gadatay wixii ay u socotay. Cismaan: walaala, wiilka yar maadaa dhalay mise inanta kale? Khadra: haa walaala, anaa dhalay, maxaa jira talow? Cismaan: oo haddaa inanta kale unbaa inta badan haysa oo sidatee? Khadra: haa, way noo shaqaysaa oo waa inan howlkara ah. Cismaan: haa, suuqana way ka shaqaysaa miyaa? Khadra: may walaal, guriga uun. Cismaan: oo haddaa subaxii ayay furaha guriga ii dhiibtaa iyadoo ilmaha yar xambaarsan, waxaana igu soo noqotaa duhurku dhawaadka ee talow ma meel bay gaadhaa? Khadra: yaa xambaarsana oo halkay la tagtaa talow? Cismaan: walaal ma garanaya, balse ilmahaaga dib ugu noqo oo ka warhay. Khadra aad bay u anfariirtay, waxaana go'aan ku gaadhay inay naagtan isla saacadanba xidho ilaa inta ay ka cadaynayso meesha ay ka yar la tagto maalin walba. iyadoo cadho basteeda u ordaysa ayay madbakhii iyo halkii ay ku ogeyd inanta isku hubsatay. Nasiib darrase ma joogto oo musqusha ayay gashay. Dabadeed Axmed oo fadhiga jooga ayay u gashay iyadoo qaylinaysa oo ay sheekadii uga warrantay. Axmed baa ku yidhi ista jooga gabadhu yay naga shakayna aamus, waxaynu ka wardoonay halka ay ka yargeyso oo berri shaqo tagi maynay meelahaasaynu ugu dhuumane. Waagii baa beriyey sidii caadada ahayd ayay ka amba baxeen guriga iyagoo aan inantii waxba dareensiin. inta ay gaadhigii kala baxeen guriga ayay istaageen meel aan guriga ka fogeyn balse dhowr sakadood u dhaxeeyaan. Khadra ayaa inta ay ka degtay gaadhigii oo niqaab xidhatay u gashay xaafad dukaanka Cismaan ka soo horjeeda oo ay is yaqaanaan, kadibna halkaas bay ku sugaysay inta gabadhu guriga ka soo baxayso. Mar dambe ayay aragtay gabadhaad moodo inay garanayso balse ay hore u aqoonsan weyday, isla markaana ilmo yar xambaarsan. inta ay gurigii ka soo baxday lanweyn niqaamantahay ayay u soo dhawaatay, mise waaba lafteedii oo dhar aanay weligeed ku arag xidhan. waa xijaab uskaga iyo hareeryaha ka muuqda aad yaabto oo xataa googo-aan, kaas oo dhaqidii ugu dambeysay malaha dhowr sano iyo diracaan waxba dhaamin. inta ay naxdin kala qabowday ayay gabadhii cunaha ku dhegtay oo niqaabkii iska furtay. qayle iyo cay kadib waa lagu soo xoomay, waxaana meesha yimid dad fara badan oo Axmed ka mid yahay. waxaana markii dambe ay gabadhii ka qaadeen ilmihii, iyadana waxaa lagu celiyey gurigii. kadibna waxaa lala yeeshay waraysi dheer oo aanay hanjabaadi ka maqnayn. markay waxba sheegi weyday ayaa loo sheegay in la xidhi doono oo ay jeelka liinta ku cabbi doonto muddo badan. markii dambe ayay waxyaro sheegtay balse waxba waa laga fahmi waayey. goor dambe ayay Khadri cadhadii iskala garan weyday oo xadhig leedh ay gacanta ku haysay ku dhufatay. xanuunkii ayay ku qaylisay, waan sheegaya ayay iga daa walaal xadhigga. iyadoo si weyn loo wada dhegaysanaya ayay tidhi, naa wax ma kuu sheegaa anigu qof balwad labaan ahay oo ma sugi karo gunnada yar ee aad bishaysiinayso. dee markaa ka yar waan qaataayo subaxii baan dhulka kusoo maxaafsadaa, micnaha waan kusoo dawarsadaa. haddaana miyaan ku xadi lahaa sidaasaa adna kuu danah anna ii roone.
markaa halkeed ku cuntaabay tiri Khadri iyadoo ciil gowsaha isla dhacaysa waxayna ugu jawaabtay markaan hawsha guriga iska hagaajiyo ayaan casarkii guriga fadhiisanaa aniga iyo laba dumar oo kale yaab iyo afkala qaad muxuu koraa ilmuhu waa ilmo yaroo maalintii oo dhan cadceed iyo boodh lala fadhiyo oo kolba meel wasakha la dhex dhigaya oo marba gurguuranaya meelaha nadaafadeedu wacnayn subaxii waxay la soo martaa dhammaan hoteelada iyo wixii meherada ee kalaba qisadani waa dhab oo Hargeysa ayay ka dhacday gaar ahaan xaafadda Goljanno